fasalkan waxaan ku baranaynaa saamigal waxa la dhaho tusaale ahaan hadda Axmed iyo Liibaan waxay wada dheeleen kubadda kolayga Axmed wuxuu toortay kubadda kolayga 93 jeer wuxuu la gafay 32 jeer uu la gafay 93 jeer uu toortay wuxuu la gafay 32 jeer uu la gafay okay marka hadana inta fiiriso ninkan leeyahay Liibaan asna wuxuu toortay 31 jeer wuxuu la gafay 12 jeer uu la gafay marka saamiyada qaladka ah ee Axmed iyo saamiyada qaladka Liibaan isu dhigmaan marka hore horta aan tibaaxno saamiyada qaladkan ka bilaabeyna inta uu la gafay Axmed wuxuu la gafay 32 jeer wuxuuna guud ahaan toortay 93 jeer Liibaan marka fiiriso wuxuu la gafay 12 jeer guud ahaan wuxuu toortay 31 jeer fraction ahaan u tibaaxayna labadaba mid marka fiiriso qaybta hore tibaaxda koowaad waxay u taagan tahay qaybta sare tibaaxda labaadna waxay noogu taagan tahay qaybta labaad farqiga kale marka fiirsasna tibaaxda sare waxay noogu taagan tahay ama qaybta hore waxay noogu taagan tahay qaybta sare tibaaxda labaad waxay noogu taagan tahay qaybta hoose si adarteeda marka ma isu dhigmaana leedahay isku ma dhigmaa xaqiiqatan marka kana waxaan ku dhufanaynaa laba tiro isku mid ah kor iyo hoos saddex aan ku dhufanaynaa waxaan noogu soo baxayso 12 saddex ku dhufano 33 loo qeybiyo 32 saddex ku dhufano waxaan noogu soo baxay 93 marka labadaana isbarbardhig ku sameeynaa 32 oo loo qeybiyo 93 iyo 33 loo qeybiyo 93 waxa isu dhigma ma aha sidaa darteed marka waxaan leenahay saamiyada qaladka ah Axmed iyo saamiyada qaladka ah Liibaan iskuma dhigmaan saas ku muujinay iskuma dhigmaan leedahay marka tusaalihii koowaad meesha kaga baxayna insha Allah tusaalaha labaad hadaan ugu galno aan fiirino waxaa noo qoran tusaale ahaan 60 arday oo ku jira hoyga dugsiga sheekh ayaa u baahan maalintii 150 saacadood oo cabitaan ah 60 arday 150 gasac u baahan yihiin haddii ay noqdaan tirada ardayda 90 arday mise gasacood oo cabitaan ah ayay u baahanayaan ardayda meeqa gasac oo cabitaan ah ayay u baahanayaan lagu dhahay horta marka hore waxaan qoranaynaa tirada ardayda su'aashan ku celi waxa waaye 60 arday oo dugsiga sheekh dhigato ayaa maalintii waxay u baahan yihiin 150 gasacadood u baahan yihiin yaani 90 arday imise gasac oo cabitaan ah ayay u baahan yihiin lagu dhahay tusaale hadda qorno tirada ardaydu waa 60 tirada ardaydu ma imisa tirada ardayda waa 60 waa tirada gasacaha ay u baahan yihiin tirada cabitaanka ay u baahan yihiinna waa 150 saamiga oo labadaba hadii aan fiirno saamigana muxuu noqonaa marka saamiga wuxuu noqonaa 60kii oo la barbar dhigay 150 marka waxaan qoraynaa fraction ahaan 60ka wuxuu noqonaa sareeye 150 wuxuu inoo noqonayaa hooseeyo waa isku yareereynaa marka isku yareereyno guud ahaan waxa soo baxaysa markaas 2 oo loo qeybiye 5 aan soo bixi doonto 2 loo qeybiye 5 marka u qeybi sareeyaha iyo hooseeyaha si aan uga dhigano sareeyaha 90 aan ku dhufanayno 45 marka hooseeyaha si ugu dhigi karnaa 45 sareeyahan si ugu dhigi karnaa 45 90 si ugu dhigi karnaa 90 waxa ugu dhigi karnaa waxaan ku dhufanaynaa kor iyo hoos waxaan ku dhufanaynaa 45 hoosna waxaan ku dhufanaynaa 45 ila kor waxa ku dhufatid hoos ku dhuf ay 45 hadii laba aan ku dhufano waxay noqonaysaa 90 oo loo qeybiye 45 hadii 5 aan ku dhufano waxay noqonaysaa 225 noqonay kadib maxaa sameeynaa marka kadib waxa sameeynaysaa 90ka arday waxay u baahan tahay marka 90ka arday waxay u baahanayaan 225 gasacadood marka hadaba labada saami marka qortid labada saami hadii la qoro saamigii hore waxay ahaayeen 60 arday oo u baahan 150 gasac oo cabitaan ah saamigan kalena marka fiiriso waxa waaye 90 arday oo u baahan 225 gasacadood oo cabitaan ah marka ma isu dhigmaan jawaabta taagan way isu dhigmaan waa 90 arday waxay u baahan yihiin 225 gasacadood oo cabitaan ah waxa ayna ku soo aragnay tusaalayaasha koowaad iyo labaad saamiyo isu dhigma iyo kuwa aan isu dhigmin hadaba saamiyada isu dhigma ayaa loo yaqaanaa saamigal marka waxaan ka baranaynaa saamiyada isku dhigma waxa la saamigal labada hadda marka fiiriso magaca ay qaadanayaan muxuu noqonaa marka saamigal ayuu noqonayaa waayahay saamigal waa laba saami oo isu dhigma waa laba saami oo isku dhigma waay okay waxaan tusaale u qaadan karnaa waxay u dhigantaa b haye waxa kale waxay la mid tahay marka c oo hadana u dhiganta d
halka b waa inaysan la mid noqonin b markaas waa inaysan la mid noqonin 0 waa inaysan la mid noqonin d na waa inaysan la mid noqonin ayadana sidoo kale 0 waa inaysan la mid noqonin haday 0 la mid noqoto ya 0 haday la mid noqoto marka wax isu dhigma ma ahan laakiin 0 haday la mid noqon weyso oo number ay noqoto caadi ah waxay noqonaysaa wax isku dhigma waayahay halkaasaan kaga gudbeynaa insha Allah qaybta kale aan gudbeynaa waxaan galeynaa insha Allah cashirkeena labaad oo ah saamigal toos ah saamigal toos ah horta saamigalku waa isgarab dhiga laba saami waa su'aal meeshan waxaan ku haysanaa waxay la mid tahay ba kata waxay la mid tahay ja ka ha fraction ahaan u tibaax marka tibaaxdan hore waxay u taagan tahay qaybta sare ee fractionka tibaaxdan waxay u taagan tahay qaybta hoose ee fractionka sigwal marka fraction ahaan loo qorana qaabkaas ay noqonayaan waayahay astaanteedana marka equal aan u qaadanaynaa waa isu weedaarinayna kadib example si fiican ugu sii fahmi doonaa hadda example ahaan meesha waxaa noogu qoran haddii qiimaha 10 book uu yahay 50 kun oo shilin 10 book na soo qaad waa buugti mugti waxa waaye 50 kun oo shilin Soomaali ah 20 book qiimahooda ma yaqoon noqonaa marka qiimahan ma naqaan waana loo diray xaq u qaadanaynaa waxaan marka hore isbarbardhigaynaa labada qiimo ee tirooyinka buugta 10 book oo loo qeybiyo 20 book waxay la mid tahay 50 kun oo shilin oo 10 book ah oo loo qeybiyo 20 book oo qiimahooda aan la kasin waxaa adeegsanaynaa marka cross multiplication 10 waxaan ku dhufanaynaa x ta waxay noqonaysaa meeshan 10x ama 10 xa 20 kan waxaa isku dhacay 50 kaas 50 kan kun oo shilin lagu dhuftay 20 xa u baahanahay dhinacan 10 u qaybi intana sidoo kale 10 u qaybi 10 iyo 10 kan isla baxay xa waxay u taagan tahay qiimaha 20 book labadana isku qaybinaynaa waa 10 inta u qaybinaynaa sorry waa 2 intana 10 u qaybinaynaa waa 1 labadan waxay toos ugu dhacay 50 kun waxay noqonaysaa marka 100 kun oo shilin Soomaali 20 book marka qiimahooda waxay noqonaysaa 100 kun oo shilin Soomaali ah waa iska fahmi kartaabo haddii 10 book 50 kun ay yihiin 20 book maxay noqon karaan laba leeso lagu dhufanayo marka laakiin anaga qaab waxaan ku soo saarnay xisaab ahaan u soo saarnay tusaale kale haddii aan ku darsado qiimaha 8 funaanad 8 funaanad qiimahooda funaanadood qiimaha 8 funaanadood ah wuxuu yahay 500 kun oo shilinka Soomaaliga ah haddii cali uu bixiyay 250 kun oo shilinka Soomaaliga ah haddii cali uu bixiyay imise funaanad buu iibsan karaa marka funaanadahan raadinayna marka imise funaanadood buu iibsan karaa marka waxay noqonaysaa waxa soo qaadanaysa marka hore 8 funaanadood soo qaado waa la yaqaana funaanadahan oo imisaha ahna xa iskaga qaado waxay la mid tahay 8 funaanadood qiimahooda waxa waaye 500 kun oo shilinka Soomaaliga ah ninkan la leeyahay Axmedna wuxuu bixiyay 250 kun oo shilinka Soomaaliga ah u bixiyay marka cross multiplication samee 8 inta ku dhacaysa x tan xaadan waxay isku dhacayaan kadib waxa meesha ka soo baxayo ama xaalada 500 kun soo qaado 500 kun ku dhacsan xa waxay la mid tahay 8 oo ku dhacsan 250 kun oo shilinka Soomaaliga ah xa u baahanahay dhinacan 500 kun u qaybi dhinacan sidoo kale 500 kun u qaybi 500 kun iyo 500 kun isla qaybi qiimaha xa wuxuu la mid yahay leedahay waa 1 2 3 4 1 2 3 4 asla baxay marka 40 eber iyo 40 eber isla baxan waxa meeshan ka soo haray marka konton ka soo haray Soomaa waxa sameeynaa 8 waxa ku dhufanay 25 lagu dhuftay 8 waa imisa 8 ku dhufa 40 eber dhiga 4 wata 8 lagu dhufay 16 waxa ka soo baxaysa 200 kor waxa ka soo baxaysa marka 200 oo loo qeybiyay konton eber isla bixi 25 u qeybi
xasan cali wuxuu iibsan karaa marka afar funaanadood uu iibsan karaa afar funaanadood ayuu iibsan karaa marka ma iska fahmi kartaa haddii 8 funaanadood 500 oo kun ay ahaayeen axmed calina wuxuu dhiibay 250 kun uu dhiibay meeqa funaanadood qaadan karaa laba leelo qayb soo ma jeedid marka afar funaanadood oo cali qaadan karaa waayahay insha Allah qaybta kale aan gudbeynaa bismillaahir rahmaanir rahiim hadda waxaan ka soo baxnay saamigal toos ah waxaan galaynaa saamigal aan toos ahayn mar walba horta saamigaladu toos ma ahan mararka qaar waxay noqdaan kuwa aan toos ahayn insha Allah waxaan ku fahmaynaa example-adan soo socda tusaale ahaan 12 shaqaale ayaa shaqo ku dhameystiri kara 5 maalin 12 shaqaale waxay shaqo ku dhameystiri karaan 5 maalin ay ku dhameystiri karaan haddaba imisa ayay ku qaadanaysaa 7 shaqaale 7 shaqaale meeqay ku qaadanaysaa 7 shaqaale meeqay ku qaadanaysaa laga rabaa waxaad marka hore isku dhufanaysaa waxa leedahay waxa soo qaadanaysaa maalmaha waa ama shaqaalaha soo qaado 12 shaqaale oo loo qeybiyay aa leedahay 7 shaqaale ama 12 loo qeybiyay 7 waxay noqonaysaa 12 oo loo qeybiyay 7 waxay la mid tahay leedahay 5 maalin soo ma okay 5 maalin marka 7 maalin waxaa la rabaa inta qofood inta maalin ay ku qaadanayso waxaan adeegsanaynaa marka cross multiplication and direct multiplication adeegsanaynaa waxaan isku dhufanaynaa labadaas iyo labadan waxaan leenahay 12 oo lagu dhuftay 5 12 oo lagu dhuftay 5 waxay la mid tahay 7 oo lagu dhuftay xa isku bedela marka 7 xa inta noo keen waxay ku la mid tahay 12 5 ku dhufo waa 60 kadib labadana waxa u qaybinayna 7 inta waxa u qaybinayna 7 7 iyo 7 isla bixi xa waxay ku la mid tahay 60 waxa u qaybeysaa 7 waxa soo baxayso 8.5 maalmood marka 7 shaqaale waxay ku qaadanaysaa 8 maalin iyo maalin barkeed ay ku qaadanayaan macnaha 12 shaqaale shaqadan waxay ku dhameystiri karaan 5 maalin haddaba 7 shaqaale imise maalin ay ku qaadanayso soo ma waxa sameeyay marka shaqaalihiin soo dhigay marka hore maalmahana waa kan hal maalin la isiiyay maalinta kale la ii diray direct multiplication adeegsan marka 12 sare ku dhufo hoose ku dhufo isbar badhi kadib 12 ku dhufo waa 60 7 u qaybay labada dhinac marka 7 shaqaale waxay ku qaadanaysaa 8 maalin iyo maalin barkeed ay ku qaadanayaan inay shaqadaasi ku dhameystiraan tusaale kale 5 nin waxa ay ku qaadatay 8 saacadood waa 5 nin waaye waxay ku qaadatay 8 saacadood ay ku qaadatay 8 saacadood bay ku qaadatay inay markaasi inay dhisaan derbi imisa ay ku qaadanaysaa 4 nin meeqay ku qaadanay marka 4 nin intay ku qaadan leedahay laga rabaa maxaa sameeynaya marka nimanka soo dhigshan loos dhigay 4 waxay la mid tahay saacadahan ay soo dhig eed loos dhigay xa lama yaqaan soo ma 5 8 saacadood ku qabteen 4 nin meeqa saac ay ku qaban karaan derbigaas ay ku dhiseen 4 nin meeqa saac ay ku dhisi karaan sare ku dhufo hoose ku dhufo 4 lagu dhuftay xa waa 4 xa 5 8 ku dhufo waa 40 soo ma inta waxayna waaraysaa 4 xa is equal to 5 8 ku dhufana maxaa waaye 40 labada dhinac 4 u qaybay marka intana 4 u qaybay 4 iyo 4 isla bixi xa waxay ku la mid tahay 40 waxa u qaybeysaa 4 waa 10 saacadood ay ku qaadanay marka 4 nin waxay ku qaadanaysaa darbigaas inay ku dhameystiraan 10 saacadood jabtarkeeni saddexaad saamigal iyo saamigal intaasaan kusoo gabagabaynaynaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.